waxa ay afar noo baxaysaa maalintaanu boosaaso ka dhaqaaqnay magaaladan caasimadda u ah bari kuwa ay ku caymatay waxaa ka mid ah jidkan oo ilinka dekadda ku dhammaada boosaasona ku xira inta kale ee dalka waa waddo 30 sano jirtay oo aan dayactir helin intii lagu dul soconayay taas oo ka muuqdo daal iyo sida ay u duugowday laakiin dawladda xilligan joogta waxaa muuqata inaysan dhagaha ka daboolan taasi waxa ay ku muuqanaysaa marka inta aad dawgan qaado dul istaagto meelo la kala jeexay oo buundo jiifiyo loo diyaarshay kuwa dhuumo biyaha dhaafiya la isu dhinac dhigay oo la dhammaystiray meelo shub lagu dhaabay oo gabagaba u dhow iyo qaar la dhammaystiray oo dhalaalaya markii dhaawacyadii laga reebay intii aan dawgaasi haynay waxaan sii maray meelo sidan looga shaqaynayo haddii aan nugaal gallay xilli habeen ah dhulka go'an waxa la dhigay tilmaamo bidhaamaya si aan gawaadhidu ugu kadsoomin meelaha waddadu ka go'an tahay waxaannu habeennimo soconno caasimadda puntland ayaan gallay goorfiida ilaa waxaannu ku raagnay duubista dhulkii laga shaqaynayey jidkan u dhexeeya garowe iyo boosaaso maalmo kadibna waxaannu gudubnay gobolka mudug oo aan maalin kale aadnay howlaha jidkan waxaan ku jaangoy doonaa sheeko gaar ah haddiise aan dul maro dariiqan qudhisa waxaa ka muuqda daal laakiin isagana waxaa meelo dhowr ah laga wadaa dayactir dalku waa iska dhismaya waa nabadgelyo wadadu waa okay wadadu sidoo hore waa dhaantay gaalkacyo iyo meesha la yiraahdo iyo burtile jidka qaarkiis saaca ka wasabta marka jidkan waa wadada gaalkacyo wali burtile ma gaarin walaal xagee harta marayna oo burtila u dhownahay baan u maleeyaa halkan waxa maleeyaa Soomaa dhulku sida isuguma dhow haddaan see degdego oo dul istaago burtile waxaad arkaysaa dadaalka degmadani la geliyay jidadkan bidhaamaya ee laga hirgeliyay degmadan waxaa sidaa u muunadaysay kabaarko kadib dadaal dadka deegaanka ka yimid iyaga oo dawladooda kaashanaya 119 kilomitir ayay u jirtaa garowe magaalada caasimadda oo ah puntland burtile haddii aad ka baxdana waxaad gelaysaa gobolka mudug goortan wax yar dhaafnay ayaan gaaray halka laga bilaabo waddadan waa marin halis ahaa mar haddeerse laga howlgalay jidkan isku xira burtinle ilaa xarfo oo xaaladiisu mar adkayd iminkase dhexda loo xirtay aan halkan ku dhaafno mar haddaynu waddooyinkaba warbixin kale ka samaynayno maalin nasashaha kadib muuqaalkan waa gaalkacyo oo aan xilligan kaamirada u rakibannay magaaladan caasimadda u ah gobolka mudug waxa ay nasatay markii dadkan ku wada nool ee labada maamul ka tirsan uu dhex maray heshiis lagaga gudbayo xaaladihii la soo dhaafay wadajirka bulsho ee ka hirgalay magaaladan wuxuu horseeday horumarka magaalada labada dhanba aanse markan dhuganno dhinaca puntland oo sidan u dhismaya waa wada daaro dhaadheer oo dhalaalaya waa aragtay magaalada hoteelada iyo maqaaxiyaha iyo waxyaalaha kusoo siyaaday inta hadda joogtay marka hiigsiga iyagu intaa uu ka sii sarreeyaa oo waxa weeye gaalkacyo oo ah magaalo caasimad oo kale ah ganacsiga magaalada ee sidan isu dhaafaya waxaa dheer jaadadka kala duwan ee horumarka oo siyaadaya dhan walba marka lagu haminayo horumarka gaalkacyo oo heer gaara waxaa lama huraana in loo howlgalo hilinkii la qaadi lahaa gudoomiyaha gobolka mudug cabdiladiif muuse nuur waxa uu sheegay in tallaabooyinkaasna mar hore loo tabaabushaystay taasna ay gundhig u tahay xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya puntland iyo galmudug labadan waxay wada shaqeeyaan horta waxaan leenahay shirar amni oo joogto ah waxaan leenahay howlgallo labada ciidan oo isku dhaf ah waan wada sameeyno waxaan leenahay wixii dhaca ka daba tag qolo walba meesheeda wixii ka dhacay ka daba tagto oo jawaab laga baxsho nabdeed waxaan leenahay xiriir joogto ah oo isu imaanteen oo isu cida haddaan maayarka ama gumratoraha galmudug waco oo yiraahdo ii imo waxaas iyo waxaas jirta waa ii imanaya ama waa ku soo socdo aan yiraahdo waa ii diyaar garoobaya mushkilad jirta inaan isu nimaadno iyo wax aanu kala qabno xasaasiyaadna ma jirto qaybaha dadaalkoodu najaxay waxaa ka mid ah garoonka cayaaraha ee gaalkacyo waa cawaale oo hadda cagaaran aansici Talyaani oo ku caan baxay ciyaarahaasi u daayo inuu soo jeediyo sheekada cawaale waa sida dholay aad sheegtay horumarada gaalkacyo gaartay muddo kooban waxaa sheeko ku soo koobaya burushkan reebaya kalarka cadaanka ah
ee nabadda ka faaloonaya iyo kan doogga ah ee barwaaqada midabka u ah. maalmo tagay dakharada ku yaalay gaalkacyo waxaa tusaale looga qaadan karay Cawaale Stadium burburkii ka muuqday. dhagaxyadii uu ku dhisnaa ee soo daatay mid kasta gaarkiisa ayuu u fogeynayay loolankii saaxiibtinimo ee halkani hoyga ay u noqon lahayd dhalinyarada isfahamkooda iyo isdhexgalkooda waa halka ay nabadda gaalkacyo ka soo binatay. garoonkan la cagaariyey taaka kasta oo ka mid ah haatan waa uu taaganay dadaalkii ay geliyeen shacab iyo dowladba. maalmihii mashiinku uu ahaa motoorka kaliya ee halkan ka shidan gaalkacyo oo ay garab joogaan maamulkeedu waxa ay sakeelada u wadatay kabidda daloolada kala dhimay isdhexgalka iyo wada ciyaarista dhalinyaradeeda. daaraha nasashada ciyaaryahanada ee garoonka Cawaale dharaarihii shubkoodu uu socday waxay ahayd kuwa gaarkooda u adkaa, laakiin dadaallo badan kadib Cawaale waa isaga u cilbaxay si aan dhammaad lahayn. run weeye waa la gufeeyey dalooladii colaadda. rajo weeye ishaadu halkan doogga ah markay ku dhacdo. waa horumar iyo wadajir kolkay tahay kuraasta sida la isugu xijiyey ee tusaalaha u ah gaalkacyo sida isu xigto. waa war aan ku dheeraansho iyo faahfaahin lahayn kolkay isha kuu qaado dayuuradan sawirada duubaysa ee dul heehaabaysa gaalkacyo iyadoo aan carareen sida waa shimbiruhu uga baxsan jireen. war gaalkacyo boowe horumartay. mahadsanid ciise oo inoo tabinayay sheekada garoonka kubadda cagta magaalada gaalkacyo Cawaale. si magaaladani u najaxdo Puntland waxa ay qaaday tallaabooyin lagu sugayo amniga magaalada, waxaana la tayeeyay ciidamada booliiska iyo kuwa kale oo gobolkan ku sugan. gaalkacyo waa magaalo istaraatiiji ah oo ku taal kala barka dalka. isbeddel la filayo waxaa hogaaminaya dekedda Garacad laga dhisayo oo albaab kale oo horumar u furi doona guud ahaan Soomaaliya. geeska kale waxaa galin hore laga fikiray furdada kale waa tan qallalan Tuurdibi oo ku taal Galdogo. dhammaan goobahaas waxa ay horseedi doonaan haddii ay hirgalaan horumar gobolkan u siyaada. duubista, diyaarinta iyo xitaa talo bixinta barnaamijkan waxaa lahaa Maxamuud Jaamac Joker. sidoo kale waxaa kaalin muuqata qaatay Kilwa Aadan.